carada xanaaqa ama dhirifka waa wax xun oo ruuxa ku qasba inuu ku dhaqaaqo wax uuna samayn lahayn carada ka hor, waana midaas sababta uu nabigeena Muxamed sallallahu alayhi wasallam nooga reebay inaan caroono. haddaba muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa dad dagaalamay ayadoo toos looga daawanayo TV-ga kadib markay kontrooli waayeen caradooda. fadlan haddii aad nagu cusub tahay oo aadan horay subscribe noogu saarin, maanta inoo saar si aad ula socoto muuqaaladeena. TV lagu magacaabo Asia Device VS ayaa waxaa ku dagaalamay barnaamij toos ahaa oo loo qabtay gabdho heesa ah, kuwaas oo heesa caay ah kol hore hawada isu mariyay. markii barnaamijka loo qabtay dood badan kadib waxay isku bedeshay gacan ka hadal. wariye Russian ah oo lagu magacaabo Nikita Razvozyav ayaa warbixin toos ah oo ka tabinayay beerta Moscow ee caasimadda Russia xilli loo dabaaldegayay maalinta ciidamada cirka ee Russia. nin cabsanaa ayaa ku soo dhawaaday, kadib wuu dhaajiyay wax yar kadibna waxaa xigtay in uu feer ku sii daayay. wariyaha oo nin deganaa ahaa ayaana ka jawaabin arrintaas, isagoo si tartiib ah uga baxay tabintii. Валерий, ну действительно, отвечая на ваш вопрос, сразу скажу, никто, кроме них, так не отмечает свой праздник. Ну действительно, они это элитные войска, ВДВ, их не зря так называют. Первые в воздухе, первые... Помолчите, пожалуйста. Первые в воздухе, первые... Не будешь со мной, блядь, так разговаривать, блядь, сейчас пизды получишь, черт. Что хочешь? Моя страна, wariye Mareykan ah iyo nin ciyaartooy ah kana mid ah ciyaartooyda ciyaarta kubadda rugby ee markaa wareysanayay ayaa ka xanaaqay wariyihii kadib markay isku qabteen ruuxa aad u ordayay. kadibna ciyaartooygii muxuu sameeyay? For that team that he lit up. I'm talking about the New Orleans Saints quarterback Jim Everett. There's the game winner right there. All right, that was then, and this is now. He's now a member of the Saints. Jim, good to have you on the show. Good to be here, Jim. Thank you. Check that. Chris Everett, good to have you on the show. You know what? You know, you've been calling me that for about the last 5 years. About 2 years, actually, Chris. Well, hey, you know what? Let me say one thing. In that game, how many sacks did I have that we came back and won? How many sacks did you Yeah, have? that game. How many sacks? Let's see, but this was back in 1989. that was you about may have six. even been Jim Everett back there, but somewhere along the way, Jim, you ceased being Jim and you became Chris. Well, let me tell you a little secret. That, you know, we're sitting here right now, and if you guys want to take a station break, you can. But if you call me Chris Everett to my face one more time... I already did it twice. You call it one more time, we better take a station break. Well, it's a 5-minute segment, or a 5-segment show. We got a long way to go. Well, we do. We got a long way to go. We do. I'll get a couple segments out of Well, you. it's good to be here with you, though. Well, it's good to see you, because too. you've been talking like this behind my back for a long But time. now I said it right here. Right, exactly. Well, we got no problem Well, with that. I think that you probably won't say it again. I bet I do. Okay. Chris? TV laga leeyahay dalka Ukraine ee laga soo daayo barnaamij loo qabto qoysaska dagaalka dhexmaray ayaa waxaa dood loo qabtay qoys ka koobnaa awoowe, hooyo, aabbo iyo 2 gabdhood oo ay dhaleen. dooda oo aad u kululeed wariyaasha kuna saabsaneed faraxumeen aabbuhu uu ku sameeyay gabadhiisa ayaa awoogii ka xanaajisay. markii hore wuxuu garaacay gabadhii uu sodog u ahaa, wax yar kadibna wuxuu garaacay wiilkiisii isagoo marna aan u aabayeelin. TV-ga toos looga daawanaya. Ты живешь, спишь с ним или нет? Честно. Що ти мелиш, Надя? Надя? Що? А для чого ти це мелиш? Тебе ж... Діду, не треба! Пусти, діду! Діду, пусти! Її стягував одіяло, думаючи, що це я. Він не займав її руками. Стягував одеяло. То есть ваш муж? Діду! А в какой жена? Діду! Нічого. Діду! Та що ти чіпляєшся до мене? Ось завтра все і узнаєш, що ти підеш. Не знаю, красиво, это, конечно. Вот так, вот теперь... Ты сомневаешься, здорово или нет?
Согласен. Опа! Смотри, какой... Ни хрена себе, 62 года! Сюда иди, куда ты пошел. Сюда его! Сядь. Пан Зенек. Все. Посогласен, Я в кровати даже... gabar dadka wadada marayay toos war uga soo tabinaysay ayaa wiil dhalinyaro ah oo ay wadada kula kulantay oo ay doonaysay in ay warbixin ka qaado ayaa wiilkaasi waxaa xifaaleynaya kuwa saaxiibadiis ah oo daasha kore ka soo eegayay kadib intuu xanaaqay ayuu gabadhii ugu jawaabay inuu biyo ku sayriyo. First he did seem quite and he actually didn't even ask us to leave, but even before I was able to ask him a question he gave me quite a surprise. Have a look at this. If I can walk away, I'm going to throw this back and forth. Are you? Go again. I smoke a little bit a day. waxaa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan fadlan sheer garey leeg inoo saar sabscribe-ka nagii loobin mahadsanid intaas kadib muuqaal kale oo xayeysiin ah ayaan idiin soo gudbinaynaa waxaa laga yaabaa in aad wax ka faa'iido ee nala daabo wax yar. bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan rabaa maanta inaan idiin soo gudbiyo arrin ku saabsan baashaan magaceeda waxaa la yihahdaa Olivera. shirkadda Forever soo saartay. shirkadaasi waa shirkad soo saarto waxyaabo badan oo ay kamid yihiin daawooyin ay soo saartaa iyo qalabka ay haweenka isku qurxiyaan. waxay kaloo sameysaa waxyaabo badan oo bini'aadmiga ay isticmaali karaan, guriga lagu nadiifiyo, musqulaha lagu nadiifiyo ayay sameysaa. marka daawadan waa daawo u fiican gaaska. dad badan oo Soomaaliya waxaa jiraan oo gaaska ka sheeganayaan. baashan iyo tan caagaas yar la isku isticmaalaya. caaga yar kaniiniya ku jiro ayada nafteeda isla shirkadana soo saartay. Veil of Green al dhahaa ilaa iyo waxaa ku jiraan 8 xabo oo kaniini ah. 8 kaniiniga 8 maalmood aa cunaysaa. caagana daawo ku jirto. daawadaas oo ayadana ah biyo waaye. bakeeriya ku shubanaysaa oo nus bakeeri ah. bakeeriga oo 3 qayb loo qeybiyay, bakeeriga riiska oo shaah lagu cabo oo 3 qayb loo qeybiyay, qayb kamid ah iyo kaniiniga oo hal xabo ah subax hore aa cunaysaa. waa la tijaabiyey arrintan, waa la hubaa. dad badan ayaa ka faa'iidaystay oo caafimaad ka helay. daawadan shirkadan oo la dhahayo Forever waxyaabaheeda iyo wax soo saarkeeda aad iyo aad loogu reystay, waa la aaminsan yahay. marka daawadan waa tijaabin kartaa, inkastoo wax soo saarkeeda iyo alaabteeda ay yihiin alaab qaali ah, laakiin haddana waa la hubaa in aad ku caafimaadaysid oo ilaahay caafimaad kugu siinayo. dad badan aa ku reystay. haddii aad u baahan tahay taleefanada hoos ku qorna nagala soo xiriiri kartaa, isla markaas ra'yigaada na soo gaarsiin kartaa. waan idin mahad celinayaa sida wanaagsan ee muuqaalkan aa usoo daawateen.